تصدق على من يقول صدرة سواء نقول داري نبان العقو ديبتي وقصد عدي ودنا دنا نكد عدي ضد كلام ما ضد كنا نحدث مركز الأرض بل بنو بحياة بادية بان كان عنو أكونتكم اللي هي نسكوا حنا هاي وده ده العكس أي حاجة بكيل وقصة مرحبا وصار نقدي وحوار كنك يوم مقاحي وين توفر تكشغين مقاحي دي وبرقانسن وشغله كبرقانسن مركز السلام عليكم عليكم السلام عصر كيف هذا وصلنا السلام عليكم وانكو مشغول سن عشاء يجيبوا يمدي وعير ورده ما حد داف يقول العقد بريقان كو ديبتي يا نص عداي العقد هذه واتا شقينيس واتا شقينيس ويا ورمحل لهدها العقد هذه واتا شقينيس ورلعقت امانه هيده شركاء من وهين امانه كو ديبتي وانكو امني ولا العقديديسي markaas oray soo dacway maqalkan lacagta lagu qaado maqaaxiyahana dushiisa wuxuu ku qortay inna fatahna laka fathan mubina ayda meeshii ma la dhigay war ma la dhigay jaalayaasha kama aragtin tawakkaltu ala allah wa kafa billahi wakila mis jaadiya maxaa ku keenay ayda quraanka hatta jaalayaasha ka dul arkaysa إنا فتحنا لك فتحا مبينا قرآنك ماشي سين لما دقين حدو قفك أمانة لهين أبو نبي قولي قفك أمانة على لهين إيمان ملا أبو رسولك مرقى أبو نبي قول الصحابة وحو كل رجلي جعلك إلهي نبي قادو قبتان وحو كل نقونا يا رب ما ينشيكا مرقى الشيكين سرقوا شيكايا مرقى أمانة اللي نيدي بتنا أمانة ذا حفظة حداد بلن قادانا بلن كبوحية أبو رسولك عيسى ابن مريم عليه السلام أيا أركنن لبدا قعمد هلكا كوغوان لبدا لغودنا هلكا كوغوان إن دلأو وحبنا عن أركين جركي سنة أي كود عذاب برس أو وضعد أو كود عيسنا يوله إله وحن كو حمديا بلا يبدن أو أضومه سكود عذاب يجبد باديانك وانكي وانه لبدا لغودنا هلكا كوغوان لبدا قعمودنا أنت كوغوان إن دا أن لهين وحبا أركينين jirkiisana waxa ku dhacday baras wada cad yahay waxaanu ku ducaysanaya uu leeyahay ilaaha waxaan ku mahadiyaa balaaye badan oo adoomihiisa ku dhacday iga badbaadiyay baan ku mahadiyaa buu leeyahay nabiyullaahi ciisa alayhi salaam baa ku yiri oo adiga balaayada ka maqan ee dadka kale ku dhacday ilaahay ka magan galaysa maxay tahay buu yiri wuxuu yiri waxa weeyaan dad baa jira buu yiri qalbi bay leeyihiin qalbiga ilaahay kuma hayaan cabsidiisa iyo jacayladiisa عربنا ويليهين عرب كوغنا إلهي كما حسوستان أما أنك إلهي وحو إسيي قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا با إلهي إسيي قلبا شاكرا قلبي وحو إلهي إسيي مرول بمهد نقايا يا عرب وحو إلهي إسيي الذاكرة ومرول بحسك إلهي كوغيا قفك قلبي اللي سيي إيه قلبي إيسا إلهي ما أنت أنكوهين عبسديسا محبديسا جعيلديسا أنكوهين يا قفك عرب لسيي إيه عرب كيسا إلهي أنكو حسوسنين ee wax kale oo kaga sheekaysanaya miyayna balaaya ku dhicin buu yiri haaway ku dhacday taasan ilaahay ka magan galaya buu yiri ilaahay baan aniga taayiga ilaaliyay buu yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam ayaa suuqa madiina isagoo maraya nin wuxuu arkay awr iibinaya markaasuu nabigu yiri awrka ma iibinaysa ha imisa inta way heshiiyeen markaa buu nabigu ku yiri soo raac awrka lacagtiisa ma ku siinay ana reer baadiya ما قرنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا مدينة وصاق الأور كائن ويبيو هو كان كيبو هيا رسولك ضبط السعداء مركب النبي قد دقدقي ما دام النبي قد حق لقول يا هي وحود دونا يا إنه نيجي هوري العكتي سوسيو نيجي ربادينا عاير بو السعداء ما دام السفر كسو قولوا سود علي عاير بو السعداء وضبط بلدان سنة يا مركب النبي قد صاد دايما وحو أركي نينكيو نينكي لا تاجون أور كي بناي مركب النبي قد صاد نقي wuxuu arkay ninkii lacag loo tirinayaba markaasuu nabigu ku yiri war xagee soonigii kala iibsanay ma ninkii reer baadiya yiri gama iibsan markaa buu nabigu waan heshiinay tamma albay qiimihiina waan ka wada hadallo waan isla afgaranay waxaad hadda ila socotay kaliya ina lacagtiisa ku soo siiyo markaasuu ninkii yiri may igama iibsan
markaabuu nebigu leey war waan kaa iibsaday muslimiintii reer madiino dhan baa ku soo urmay waa la isku dhageysanayaa acraabigii wuxuu leeyahay igamaad iibsan nebiguna waxa uu leeyahay war waan kaa iibsaday waan kaa gatay iyo igamaad gadan ninkii acraabigaa yidhi war inaad iga iibsatay markhaati ma haysataa markaabuu nebigu dadka sidaa u eegay khusaymata ibnu thaabit nin la yidhaah oo reer madiinaa soo boodo yidhi anaa markhaatiya buu yidhi inuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu iibsaday maaragtaane awrka inuu kaa iibsaday anaa maragga furaaya markaabuu nebigu sidaa u eegay khusayma yaa khusayma markaan ninkan kale iibsanaynay meesha maad joogine seed markhaatiga aniga aad iigu qaadaysaa markaasuu yidhi yaa rasuula allah warkii samada ilaahay kaaga soo dhiibay ee jibriil uu kuu keenay baan kaa rumayne ma bini aadamkan aad baan u sheegi buu yidhi ma bayciga addoonkan ina dhex maray baad been ka sheegi inaad ka iibsatay waxaan ku rumaystay tidhidda aad tidhi waan kaa iibsaday intaa baan ku sadaqay buu yidhi markaabuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maanta laga bilaaba khusaymata ibnu thaabit saxaabiga la yidhaahdo maanta laga bilaabaa halka laba nin marag looga baahan yahay isaga keligii baa ku filan buu rasuulku yidhi markiiba nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu siiyey shahaado ayuu siiyey shahaadatu khusayma tacdilu bishahaadati rajulayn laba nin halka marag looga baahan yahay khusayme keligii baa ku filan buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam leanna saxaabadu waxay garanayaan nebi maxamed qadarkiisa mar haddii ay maqlaan ilaahay baa sidaa yidhi oo nebi maxamed baa sidaa yidhi boqolkii nin taajira oo ganacsada ayaa jamaaca ku ziyaaratay xafiiskiisii shaashad weyn baa hor taalla xafiis kasta oo shaqaalihiisu ay fadhiyaan kaamera baa u dul saaran halkaa buu kala socdaa si fiican hadalka u dhagaysta markaasay jamaacaddii kolkay u xadiiseen bay ku yidhahdeen shaashadda inaad kolba mar eegay sideed dadkuna dhex soo socdaan wuxuu yidhi waa shaqaalahaygii baan halkaa kala socdaa buu yidhi oo gabdhaaba ku jire maxaad gabdhaha u khaawisi buu yidhi mar markii qaarkood shalmadaaba ka dhacayse wuxuu yidhi si kale oo lagu aaminaa ma jirto kameragaabay ka baqayaan deedna xoolahaygii iyo shaqadeydii baa ii nabadgalaysa buu yidhi ninka dadkaa muxuu ka aaminsan yahay markaa u shaqaynayo oo dhan waa tuug way idhacaan kameraaga waxaan u wada duldhigay waa in xoolahaygu ay ii badbaadaan saasuu ka aaminsan yahay soo maha de muxuu ka aaminsan yahay waa tuug qof la aamini karaa ma jirto mid baa mid sidaa ku yidhi dadka maanta wax la aamini karaa maba jira buu yidhi kaad meel u dhiibtaba uu ku dhacayaa buu yidhi ayib shaqaalihiisii qof ka mida ayaa maalin isagana meel lagula kulmo markaasaa lagu yidhi maalin baan sarfiiska kugu soo maray yaad u shaqaysaa shirkaddaa baan ka shaqeeyaa imse sanaa ka shaqaysaa 7 sano lacag muxuu ini siiyaa intaa maalintaad shaqada bilowday ilaa 7 sano lacagtaadu ma intaa unba haa waa intaa oo nima biiriyo sanad kasta wuxuu nagu yidhaahdaa waa nii biirin noomana biiriyo ballan kasta sanad walba ballan buu noo qaadaa ballanna ma ilaaliyo waana beenaale bay yidhahdeen iyakii shaqaalihii waxay isaga ka aaminsan yihiin waa beenaala ninkaasi isagii iyaka wuxuu ka aaminsan yahay waa tuug haddana ninkii maalin dambaan aragnay bal waranoo ma fiicantoha shirkaddii way kacdo waan xidhay buu yidhi maxaad u xidhay wax dad aan aaminaan weynay buu yidhi khalaas dadkii ammaano male buu yidhi waxaa laga yaabaa dadka u shaqaynaya o dhan inay jaamacada ka soo baxeen isagani inuu jaamacad soo dhigtaan laga yaabaa laakiin ammaano qofki inuu yeesho inuu ballan buuxiyo uu noqdo inuu rusheego uu noqdo
إنه عدالة فلا النقض إنه طبيعة وناسنا النقض ما الدبلوم بيوبا أنت مسد إيمان بيوبا أنت بلي شجع إيه الجواب وفكون الرشيد النقض وبلن بوحية النقض بلن إلالية طبيعة وناسنا عدالة سماية إحسان سماية إنه النقض ما الدبلوم بيوبا هي ما نقاش ولي جامعة اللي يرينك كالصباحة وحنا نقول نين أمانة حافظة نين رشيقة نين بلنبوحية نين عدالة سماية ما نقاشين ما جرتها جامعة عينكاس ما جرتها ويجرتها وجامعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. السودان لما كنا سجالكي مقالة اللي راد السليم واحد كأوده حياة مصر السودان أيان جوجي جماعة لا سعودي نن عالمة إلى أي مكان نيك عالم كون حسوس تامك عيسى شيخ صابر علي بلو نجري علامة خطيبة أو إلهي أوسي قوة البلاغة والكلام والفصاحة أيان قريجي سكوب مسكيت كوح وقالا تقريبا لا طبن كن وقف مركز جماعة دي مسكيت كان نقول يا جماعة جيبوتي لقيستا مساجد كان لبس ساعة الصبح وبحسمي دونا بلاس والله كلواي حد إمكا سي ديار قروبة مساجد كم ألابتنا مال دكتا بلاس سيقب صدا سيدي نيك خطيب كهل كان وحل لوجي ماذا بقول كيلومتر باخذ بدي سلوجي ماذا هاي نوجي هنزيارني دائما جماعة عدد ترتيب توحى كمذا ما نزلوا في منزل هذي مقالة أما مسكيت كده قال لابد وين الشيخ عالم كزيارتان قريجي سيبا نقول تغني مركز جماعة كو جوكتا اللي يرو صوغ لبو نقل وان قال لي خطبة بور قدر كو ديار سنة وخطيب ولي ورقته وكو قرطان ما هنا يعني يخطب بدون الورقة مركز نقول من أين مركز نقول من جيبوتي ويا جيبوتي ها طريقات صومرتين وعن وحن صومر جيبوتي صنعاء خرطوم إلى أي قرية هذا وحن كوي منه بس ما حد مسافة أنت على قاعد صوغ شيء بودي بلي شيء مركز ثاني وحن صوغ لي لإصلاح أنفسنا وحن صوغ لي شيخ وحن صعنا بنكويدي لإصلاح أنفسنا ثم بودي ولتذكير إخواننا يدتك ولا الله يا مسلمين تنين صبر رجنون صو زيارنا ثم والإحياء جهد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك النبي محمد وأمد وقت تجد حلقة هانا أمد علماء كوي عيسى حلقة عامدنا أدوية وجزتينا إن العامد وشجنا أن كنا رانو ذلك الدين تإني كان عامة ولا نجرب أي علماء الله شقية أو قرب علماء الصيا مركز سوري كلام عجيب وحكى له أميمن وحكى له أنت بنص عنا وعود أياي نقدم بيا وحين السيا مركز سانريني والبوا بماله ونفسه عجيب عجيب وكاي شراب كيبو نودق دقي كل كان عبني بونقيري بس واني من مسجد كاس كصعدا أنا أقول حن لنا نمكن سؤالها سدو نوي دي الدقيقة تلو خطبة دي النايت ببلو كسو دياري وتبليغ عجيب منبر كي مرة لي مركو فولي هذا الكيس وحو كبلابي جماعة يقول تيمي ديبو لقريقة waxay igu yiraahdeen waxaan ku yiri maxaa dalka u timaadeen waxay igu yiraahdeen waxaan u soconaa islaaxa naftayada waa taan annaku maanta aan ilowsanahay buu hadaan culumanahay Abu Darda iyo Salman qisa dhex martay baan ii sheegay Salman Farisi buu ahaa radiyallahu anhu wuxuu damcay markaa inuu guursado أبو درداء يوم مركا والنبي ولا لو كدغو ولا ليي أخوة الإسلام أيو كويري أبو درداء يوم ريركا قبل في عام بيلي هنا قبل أرضه يقضون وهجاج مركا دبدو كسوية أقل وين ما هو أقل يروح عريشة أبو درداء بأقل كيسو قالوا ولا سودوي وقوس مركا يمن كسو جوري أو قبل ونكسن إلى هيسي marka Abu Darda baa yiri waxaan inantiina habilaayaan u socnaa oo ayaad u rabtaa walaalkay Salman al-Farisi baan u rabaa
markaa bay yidhahdeen salmaan inantayada siini mayne laakiin adigaa ku siinay ku yidhahdeen gabadha weligeedii mar hadduu ku yidhahdo waan ku siiyey uu ku siiyey ogow khalaas waa xaaskaagii laanna waa saddexda nebigu yidhi saddex kaftankooguna waa dhab dhabtooduna waa dhab islaanay waan ku furay kaftan ma gasho way furantay khalaas nebiga ku salliya inantaydii waan ku siiyeyna kaftan ma gasho waa sidaad u siisay khalaas walciyaadu billah diinta waan ka baxay qofka hadduu yidhahdana waa uu ka baxay ogow walciyaadu billah marka abu darda uu yaabay gabadhii khalaas isaga la siiyey siduu ugu sheegay walaalkii saaxiibkii salmaan wuuna sugayaa salmaan oo isna caroos buu isku diyaariyey carooskooguna berigaa maba adkayna gabadha intoo laysa siiyo ayaa isla markaaba saxaabiga aqal yar loo tartiibinayay habeenkaaba uu aqalgalayay inan lacagaha iyo daaraha iyo tumashada iyo hoteelada iyo buuraha la iskala dhacaya maaha ee macsiyada lagu dhisaya maaha nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam inantiisa faatima markuu cali uu dhisayay ayagoo masjidka ka soo wada baxo isgarab socdu nabigu ku yidhi cali ka warran faatima haddaan kuu dhiso markaabuu sii jeesto uu ka xishooday faatima waan ku siiyey buu yidhi caroosna waa taysa soo diyaari buu ka yidhi uu socday inantiisii buu nabigu u tegay faatima aabbo waan ku dhisay dee yaad ii dhistay cali baan kuu dhisay radia allaahu canha way aamustay way xishootay markaabay hadasho aabba ma hadlaa hadal buu ka yidhi dee cali baad ii dhistay haa cali yar calool buuran yahay haye habeenoodna uu leeyaho habeenkii indhaha aad wax ugama arka bay ku tidhi markaabuu nabigu ku yidhi faatima laqad zawajtuki wainahu laaqdamu ummatii silman waakharuhum cilman waacdamuhum xilman buu ka yidhi faatima ninka aan kuu guriyey waa ninka islaamnimada ummadeeda ugu soo horeeyey ugu soo hor islaamay waana ninka ummadeeda ugu cilmi badan waana ninka ummadeeda ugu dulqaad badan buu rasuulku yidhi barkintaana qaado qadiifadaana qaado weelkaana biyaha ku dhaansada caawana waa ku hoynayaayo diyaar garow buu ka yidhi inagu iminka gabdhaha waxba kuma darnee waxunbaa ka sugnaa sooma inta badan soomaalidu markay dhisayso wiilkay kharashka badan ku bixiyaan nebigu inantiisii faatimo markuu dhisayay u raaciyey barkin buu siiyey oo gogol buu siiyey oo weel buu siiyey marka guurkooga u fududaa keena zamankan ee cadaabka maaha u fududaa noloshu way fududayd guurka haddii la fudaydiya bay culimmadu leeyihiin zinada inay dhallinyaradu ku dhacda ayaa adkaan haddii guurka la adkeeyo waxaa la fududeeyey ogow zinadii baa la fududeeyey marka guurka inaan fudaydina diyaar ma unahay waa sababta keliya bay culimmadu leeyihiin fasaadkaan kula dagaalami karno in guurkana la badiyo in la fudaydiyo welibana salmaan farisi bannaankuu taagan yahay walaalkii abu darda ayuu sugayaa abu darda baa soo baxay markaa salmaan baa yidhi bishaare bishaare wuxuu yidhi wixii meesha ka dhacay inaan kaaga warramo waan ka xishoonayaa buu yidhi waraa xishoona ii sheeg maa lay yeelay mise waa lay diiday waniba gabadhi adig waa laguu diiday laakiin anaan laysiiyo caroosa buu yidhi anaaba caroosaba markaasuu qoslayo wuxuu yidhi ka xishoonaya adiga mahe waa aniga buu yidhi waayo calaf ilaahay adiga kuu qoray calafkaagii samada lagaaga qoray iyo adigan anuna dhex socday buu yidhi ka xishoon adiga maaha buu yidhi waa aniga ee walaal adigan allaha kuu barakeeyo zamankeena arrintaa ma dhici lahayd waa la isku rogman lahaa soo maha waa adii dhigte qisadii nebi ibraahim calayhi salaam dhegayso waa nebi ibraahim waa khaliilkii ilaahay jala wacala weliba dacwadda imtixaan buu u soo maray markuu weydiistay ilaahay jala wacala in loo siyaadiyo iimaankiisa in macrifada rabbigii ay u korodha markuu weydiistay waid qaala ibraahiimu rabbi arinii kayfa tuxyi lmowta qaala awalam tu'min qaala balaa walakin liyaطma'ina qalbii maxaa ku xigta qaala fakhud arbacata min aطayr shuruud baa yaa la hordhigay isaga
afar shimbirood la kaalay baa lagu yidhi haddaad doonayso iimaanka inaan kuu siyaadino macrifada rabbiga inay kuu korodha haddaad doonaysid afar shimbirood soo qabo mustaciduun diyaar mawtiinde ya halkaan u socdo waad fahamteen soo maha fakhud arbacata min aطayr afar shimbirood soo qabaa laga yidhi cilm alyaqiin uu leeyahay laakiin wuxuu rabaa cayn lyaqiin inuu arko cilm alyaqiin uu leeyahay awalam tu'min baa lagu yidhi maad rumayn waxa dhintay saanu soo noolayno miyaanan rumaysnayn inaan soo saari karno inaan abuuri karno mar kale inaan noolayn karno qaala balaa may waan rumaysanahay buu ihi taa rabbigayow walaakin liyadma'ina qalbii waxaan rabaa in qalbigayga iimaanka iyo macrifadaadu ay sii biyo dhigto min darajati cilm alyaqiin ilaa darajati cayn alyaqiin inaan arkaan rabaaba shaygii oo la samaynaya inaan arkaan rabaa waa hagaaga afar shimbirood la kale baa lagu yidhi waa shardigaas oday da-weyn weliba afar shimbirood oo weliba aan isku nuuc ahayn bay culammadu yidhahdeen oo kala nuuc ah oo mid walba waddan gooniya meel gooniya laga soo qabanayo oday da-weyn soo qabashadeedu may u fududahay mise waa u dhib yar tahay mise way ku adag tahay maxaa loo sheegay qisadan xikmadaha qur-aanka allah ina fahamsiiyo qur-aanka waa inaan tadabbur ku akrinaa moogtahay waxaa laynoo sheegayaa sulaymaan oo adduunyadoo dhan ilaahay weydiistayna bilaa shuruud baa lagu siiyey waayo adduunyadu qiimo ma leh laakiin ibraahim wax qiimo luuna weydiistay ka dhigan tahay shuruud baan ku xidhnay isaga diintu qiimay leedahay oo nebi sulaymaan mulkiga adduunyada ma dadaal buu ku helay mise duucu ku helay bal ii sheega rabbi ikfir lii wahab lii mulkan laa yanbagii liaxadi min bacdi inaka anta alwahaab maxaa ku xiga fasakharnaa lahu riixa tajri biamrihi ruqaa'an xayثu asaab markiiba ilaahay waan aqbalay buuhi ducadiisii mulkiga adduunka o dhan baa gacanta ka gelinay maaha lacag wuxuu ilaahay weydiistay maaha dibloom iyo tacliin yar maaha waa mulk weliba isaga dabadii cid dambana aan u qalmayn ayaa ilaahay iyuu yidhi ilaahow isii dembigayga ilaahow dhaaf mulkiga caynkaasan ilaahow isii ilaahay wuxuu yidhi markiiba wuxuu yidhi waan ka aqballo ducadii waan siinay mulki intee leeg baa la siiyey markaa hadalka shimbiraha la baray quraanjada hadalkeegii buu maqlay dabeelaha loo sakhiray jinka iyo shayaadiinta iyo cafaariidda ayaa gacantiisa ilaahay soo geliyey oo amarkiisay badaha intay ku galaan jawaahirta iyo dhamankay u soo saarayeen aqaladay u dhisayeen wadooyinkay samaynayeen waxali wuxuu u baahdo dhan nabi sulaymaan jinka iyo shayaadiintu u diraayay waxali waxa shimbire iyo hawada duuloo dhanna korkiisay sidaa u socon jireen waxushira lisulaymaana junuudahu min aljinni waalinsi waاطayr fahum yuuzacuun xataa ida atow calaa waadi naml qaalat namlatun يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأكد عيسى دعاداس ملكي عالم كودن إلهي انتو السوق هذي أي إلهي النبي سليمان قعنتك قليي بلا شروط wax shuruuda laguma xidhin markaasaa ilaahay yidhi haadaa caطaa'una tani waa deeqdayadii famnun aw amsik bigayri xisaab haddaad doonto galladayso oo ciddaad doonto ku galladayso oo sii haddaad doonto hayse baa lagu yidhi waxba lagaa weydiin maayo tan laguguma xisaabin maayoba tan saciid ibn zayd radia allahu canhu islaam baa ka soo ashkatootay maxay kaga soo ashkatootay dhul aan lahaa ayuu beertiisii ku darsaday tidhi weliba ceelkaana anigaa leh iyadu haddama le ogow isagaa iska leh waa been abuurasho cuthmaan binu cafaan amiirka muuminiinta u yeedhay saciid
سعيد وطبنكي جنة اللو بشارية نين كمدا سعيد بن زيد أبا الأعور بركاسولي والله قاسو دعوة سعيدو ويا قاسو دعوة سلام تابع قاسو دعوة دغضة وما حي قاسو دعوتي رول يدو أيلة ذا هاي بعد قادة تيبي يلا ليه ومع العيال كأيضا له بركاسولي يا أمير المؤمنين أنوحن كم مغلي نبي محمد عليه الصلاة والسلام أوله دول أولهين تاكد دول أولهين نك الظلم كو قاتبوا نبي قيري مالك القيامة وحل لقوا عقوبين دونا تضبط دول انتو سلسلة لوقو حلو آيا قورت لو قلنا لورن دونا جيدو لكع لما نكعي كرايو ما نو حديث كنبي محمد كهيو كم مغلي ما يقولت هاي حق بني آدمين عن ظلم كو قاتن إلهو حدا يقول بين أبو رن يسبو يدي عندها كان قاد حدلن أضو عندها كان قاد مويانه هل كان أي شيء قصي إله قد البيودي قل كي وقع كعي حق قادة تبوليسية وإن دبش دم مركز أورنجرتي ويهبارك سعيد بايقول داعي ويهبارك سعيد بن زيد بايقول داعي أيضا إن دلو دول كي أي كل شيء قتى إسقط ورجع سو إن دلا أي عيلك كود عادي بره عيلك بيكود عادي لقى ما بس هو سر نالك بقبرك لقى دقول لقواس حق بني آدم كعيار ما أنو النبي محمد كم مغلي تاك إلا إيجو دول حق الناس نيكا قردركو قاتا تضبط دول بقيامها قرت اللوجلية أو لقوا هذا لك عجيد لما نكعي كرب النبي يقول ما جيدي كرايو ما أنو حديث كان النبي محمد كم مغلي ما يقولها عثمان وين دول بني آدم حق درك كقادا إله هذا يقول بين أبو رن يسيبوا عنده أنا كقاد هل كان إله كد البيوت أحسوا الله كبق وحب بني آدم كحقه كاجو جنيه ومحي والله كبق مركز إلهي كو حساب تمسين وكو أركايو وكو مغلايو آخر إني جرتنا يكو هرتالو حق بني آدم إن هذا أبدا كو ديرن ميسد لكن غير موقف كبني آدم كو إلهي إنه ظلم كجلا بني آدم كان ظلم كجلا وأمر كو إلهي اللوبو آخر هذا وخدك كسر dadkii wan wanaagsanaa jannaday arkayeen oo qiyaamahay arkayeen oo ilaahay wajigiisay arkayeen culimada qaarkood rag baa ilaahay daatadiisa arkaya habeenkii markay seexdaan rag baa habeen walba nabi maxamed la kulmaya calayhi salaatu wasalaam yaxya ibnu mucaad baa ka mid ahaa markuu geeriyooday ayaa manaam lagu arko lagu yidhi yaa sheekh yaxya nin waacida oo muxaditha oo zaahida oo ummaddu jeceshahay baad ahayde maa facala allahu bika maxaad rabbigaa kala kulantay noo sheeg baa lagu yidhi markaasuu yidhi fudixtu waan ku fadeexadoobay buu yidhi banka qiyaamaha oo ilaahay baa iigu yidhi soo qabta yaxya ii keena waa lay horgeeya ilaahay markaasaa ilaahay igu yidhi shaykhaagan xun maanta camalka aad agtayda soo dhigatay eed isleedahay waad ku badbaadaysaa sheeg baa laygu yidhi buu yidhi markaasaan idhi yaa rabbi 36 xaj ayaan carafo joogsaday oon agtaada soo dhigtay markaasaa ilaahay igu yidhi midna kaamaan aqbalin sheeg camal kale markaasaan idhi yaa rabbi 63,000 oo khatma qur'aaniya ayaan soo khatiman wataa markaasaa laygu yidhi midna kaamaan aqbalin waan kugu soo celiyey sheeg wax kale markaasaan dhulka eegay markaasaan is idhi dee camalkeen kaloo sheeganba labadii camale islahaa waad ugu rajo fiican tahay waa 36 xaju carafo istaagay iyo 63,000 oo khatmat alqur'aan ah intiiba markii laygu soo celiye layidhi lagaama aqbalin laygu yidhi ayaan madaxa ganoodiyey oo laygu yidhi welibana kor u taag madaxaago camalka aad agtayda soo dhigatay maanta aad leedahay waad ku badbaadaysaa itus markaasaan idhi yaa rabbi hee anu waxba ma wato waxba ma soo qaadan ba hee adigaan ku imide bas waxaan garanayay inaan u tagaya rab kariima ghafuura shakuur raxiim sataar xaliim latiif cafuwun ghafuur rabbiga sifaadkaa leh inaan la kulmaayo ayaan garanayo
waxba ma watee yaa rabbi anigu adaan ku imide bas markaasaa ilaahay gu yidhi haddaad ii timidee waa kuu dembi dhaafee jannada gal markaa raxmadda ilaahay baa jannada ku galee dadka u sheegay buu yidhi hadday waa taabiciintii waa zuhaaddii waa muxadisiintii waa salafu haadihi alumma xasan albasri maantaan akhrisanayay maanta xasan albasri wuxuu yidhi 30 sano ma qoslin 40 sanana hadal maa laa yacni oo kaftana kuma hadal buu yidhi inagu maalintii imse jeer baan kaftannaa imisaan caytamaynaa imisaan ummad xamanaynaa imisaan waxaan doonna eegaynaa imisaan waxaan doonna maqlaynaa laqad adraktu aqwaaman waxaan soo gaadhay aqwaam buu yidhi aqwaam waxaan soo gaadhay waa saxaabadii rasuulka raggaan ka soo gaadhay markaan la joogay waxaan ku dhex ahaa buu yidhi tuug baan ku dhex ahaa buu yidhi tuug waa xasan albasri baa hadalkaa leh ayna naxnu maanta halkeen joognaa maanta ilaahay hanu toobad keeno